وحليه حافظ ابن كثير يساقوا وكوقي حياة وحيري هو إظهار الخير وإسرار الشر وإن الخير موجسته شرنا وكو قرصوني شر باكو قرصون وناقنا واد موجسانيس marka uurka iyo qalbiga in gaalnimo la gashado xubnahana iyo daahirkana islaamnimo laga muujisto taa waa kufriga i'tiqaadiga weey waxaan dhilaa waa nifaaqa i'tiqaadiga ah waana nooc kamida noocyada kufriga ka shaki male bal wuu ka sii shisheeyaa gaalnimada la muujisanayo gaalka hoosna gaalka ka korna gaalka ee israacsan ee gaalnimo isku raacsan kana ka daran sazdaradeed barbi wuxuu subhanahu wa ta'ala innal munaafiqiina في الدرك الأسفل من النار درجة أجوه سيء نار تدركات كذا درجة أجوه سيء أيها قلي قال دي بكسر مريس وحتى أنت صوت وحوي يعني قال لمدي سلقريه وانين كوركي سكعدي كان لكن لبوتشي لها يعني حال كيسو مسهلا مركا كفر قيب كمدون صاص درادة العلماء دي كفر قيب سي oo istikbaar iyo juhud iyo jahli iyo u qaybisay kufriga noocyadiisa waxay ku dareen kufru nifaaq waa nooc kamida marka kaasi gaalnimada shaki male qaybta labaad ee nifaaqa qaybihiisa kamida waxa weeyaan an-nifaaq al-amali nifaaqa amaligana waxa la yiraahdaa huwa al-ityanu bi khaslatin min khisali ahli an-nifaaq ma'a sihhati al-iman asagoo ruuxu qalbigiisa iimaankii galayo iimaankiisu sax yahay oo qalbiga daacad u ka yahay buu amal ahaan wuxuu la iimaanayaa astaamihii iyo dhaqamadii munaafiqiinta lagu yaqaanay mid kamid qalbigiisu waa quman yahay waa hagaagsan yahay waa ruux iimaan leh laakiin wuxuu sameeynayaa waxyaabihii lagu yaqaanay munaafiqiinta مثلا been buu ku kacaya been buu sheegay beentu waa astaan munaafiqiinta lagu yaqaan amal munaafiqnimo ku dhacay laakiin miyuu munaafiqoobay maya ma gaaloobin laakiin amalka uu sameeyay waa dhaqankii munaafiqiinta khayaanu sameeyay waa dhaqan munaafiqnimo ballantii buu ka baxay waa dhaqan munaafiqnimo dhaqankaasi waa dhaqan munaafiqnimo laakiin qalbigiisu waa hoggaansan yahay oo iimaan buu leeyahay oo ilaahay buu ku xidhan yahay oo laakiin waa bashar oo khaladaadkaas astaamaha iyo dhaqanka munaafiqiinta lagu yaqaanay baa ka dhacay la dhihi maayo marka wuu gaaloobay waxa la dhahayaa naafaqa amaliyan nifaaqi amaliga habu ku dhacay baa la dhahay nifaaqa amaliga marka gaalnimo ma keeno laakiin wuxuu kamid yahay dambiyada waaweyn buu kamid yahay laakiin gaalnimo ma keeno qaybtana waa qaybta loo yaqaano an-nifaaq al-amali nin kam nabad ka badbaadana waa yar yahay qaybta iyada qaybta oo yaan been sheegin ninaan been sheegin ma inagu jira waa yar yahay hadii la helan saas ka nabigu sallallahu alayhi wasallam ayatul munaafiqi thalath idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khana bu nabigu sallallahu alayhi wasallam munaafiqa astaanta lagu yaqaan waa saddex hadii uu sheekaynayo been buu ku xaladeeyaa been buu sheegaa hadii uu shay yaboohii uu sameeyay iyo ballanqaadkii uu ka baxaa uu guub yeelaa hadii la aamino wuu khayaamaa xadiis kale nabigu wuxuu leeyahay intaasi ruuxay isugu tagaan waa munaafiq khaalis ah macnaheedu waxa weeyaan munaafiqnimadiisa si cadaatay way waa nifaaqi amaliga hawl nifaaqa amaliga marka qalla man yaslamu minhu cid ka nabad galshay ama ka badbaadaay way yar tahay gaalnimo ma keeno laakiin waa dambi weyn oo waxaad garan karaysaa hadii marba hadii la yiri munaafiq buu astaan u yahay dambigiisa inuusan sahlayn waa bad garatay يعني ما سهلنا لكن قال لي ما كان يا معنا astaamahooda waxa kamid ah oo quraanku sheegay shiro qalbiga ka jiray shirada qulubta gasha waa laba nooc ilaan qalbigu wuxuu u jiradaa sida jirku u jirado laba nooc way shirada qulubta gasha marad loo yaqaano maradu shubha iyo marad loo yaqaano maradu shahwa maradu shahwa oo mid rabbi subhanahu wa ta'ala ku sheegay yani fala takhda'na bil qawli
fayatmaca aladii fii qalbihi marad. dumarka markii lala hadlayay waxaa la yidhi hadalka ragga ajnabiga ha u dabcinina oo markaa uu damaaci galo midka qalbiga ka jiran. haddaad hadalkii dabcisaan oo jilcisaan markaad ragga la hadlaysaan midka qalbiga ka jiran ayaa damaaci gelaya. waxoogaa dee dabacsanaanta hadalkaa dabacsan buu waxoogaa hunguri gelhayaa amaba lagu soo dhawaynayaa bisle oo meesha lagaa rabaa. maradkaa waxaa la yidhaahdaa maradu shahwa la yidhahdaa. waxyaalaha naftu jecesha dumarka iyo adduunyada iyo waxyaalaha ku tacalluqa waxaa la yidhaahdaa jacaylkaas nafta waxaa lagu tilmaamaa waa cudurka shahwada. maradka nooca labaad waa maradu shubha oo waa maradka gala caqaa'idda iyo diinta usuusheeda. oo maalan cudur wuxuu kaa gelayaa iyo shaki kaa gelayaa ama jahli kaa gelayaa mabaadi'dii waaweynaydee inaad rumayso loo baahnaa. cudurka halkaa galana waxaa la yidhahdaa maradu shubha la yidhahdaa. munaafiqiintu labada cudurba way qabaan, labadaba way qabaan oo qalbigoodu waa qabaa. waa ka rabbi qur-aan ku sheegay subxaana wa tacaala fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradan walahum cadaabun aliimun bima kaanuu yakdibuun. qalbiyadooda cudur baa ku jira, ilaahayna cudur buu u siyaadiyey, cadaab xanuun badanna way leeyihin. beenta ay sheegayaan daraaddeed bay ku leeyihiin bu rabbi subxana wa tacala. xagga kore unbay isku mashquuliyaan, amaa gudaha nadiifintiisa iyo hagaajintiisa iyo ka shaqayntiisa iyaga shaqadooda maaha. saasaa lagu yaqaana. baynamaa ruuxa mu'minkaa qalbigiisa ayaa u muhiimsan inuu ka shaqeeyo, nadiifiyo, dahiro, cudurrada ka nadiifiyo. markaa kadib bay xubnuhu soo raacayaan oo daahirkiisu uu nadiif noqonaya. waa israacsan yahay markaasaan horeyba u tilmaanay. tilmaamahooda waxaa ka mid a walaalayaal waxa la yidhaahdo alifsaadu fi lardi taxta shacaari alislaax. inay dhulka fasaadiyaan ayaga oo muujisanaya inay wax hagaajinayaan. waxay labisanayaan oo xidhanayaan oy ku hadlayaan oo ay muujisanayaan wax la yidhaahdo waxbaan hagaajinayna, waxbaan saxaynaa, dadkaan isu keenaynaa, wanaag baan ka shaqaynaynaa. taas waa marada ay huwan yihiin oo dadka tusayaan. hoosna waxay ka wataan inay wax fasaadiyaan oo baabi'iyaan. saas wuxuu ku leeyahay yacni waxa weeyaan ninkii wax burburinahayo wax hallaynayay danihiinaan wadaa buu leeyahy. anugu hagaaji baan isleey. waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi اlardi qaluu inamaa naxnu muslixuun alaa inahum hum lmufsiduun walaakin laa yashcuruun buu rabbi subxana wa tacala. markii lagu yidhahdo war dhulka ha fasaadinina oo macaasida ha ku fasaadinina oo dadkaad isku diraysaan ha ku fasaadinina oo xumaantana ha ku fasaadinine ka daaya marka la yidhahdo waxay dhahayaan innamaa naxnu muslixuuna, annaga unbaa kuwa wax hagaajinaya, annaga unbaaba u taaganba wax hagaajin. rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala alaa inahum hum lmufsiduuna, ayaga ayaa kuwa wax fasaadinaya. cid kaloo wax fasaadisaba ma jirto munaafiqiin aan ka ahayn. sida yani waxa weeye dilaalada xasrigu ay ku tusayso ayaga unbaa wax fasaadiya bu rabbi ihi subxana wa tacala. marka waxbaan hagaajinaynaa buu leeyahy. wuxuu leeyahay yani waxa weeyaan rabiicat ra'yi rabiic ibnu anas iyo abulcaaliya iyo mufasiriinta salafku waxay leeyihin aayadda markay fasirayaan fasaadka waxaa laga wadaa alkufru waalmacsiyatu waalcamalu bilmacsiya. ruux hadduu kufri, gaalnimo iyo macaasi iyo dunuub dhulka ku samaynayo iyo wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn isagaa mufsid ah. waa mufsid. kufri buu ka shaqaynayaa, akhlaaqdii buu dilayaa, maalan waxa weeye ilaahay diintiisii buu la dagaalamayaa, wuu ku jeesjeesayaa, xugum aan kii ilaahay ahayn buu dhulka ku wadaa. yacni waxa weye dadkii ahlulkhayrka ee awliyadii ilahay buu la dagaalamayaa. mufsidka dhulka fasaadinaya kaas wey, wuxuu muujistaba. leanna dhulka waxaa fasaadiya macaasida bini aadam. macaasidu markay dhacdo dhulkii waa fasaadaya. dhibicdii kor ka imaanaysay baa go'ayso, roobkii baa yaraanaya ama go'aya. fasaad baa ka imaanaya, abaaraa imaanaya, dhulgariir baa dhacaya, waxaa imaanaya cuduraal imaanaya, loo xal waayey oo macnaha wax weeye daawo aan loo haynin. marka fasaadku aslan wuxuu ka yimaadaa macaasida bini aadamku gelaya. rabbi wuxuu yidhi marka kuwa dhulka fasaadinaya macsiyada dhibku ka imaanayo dadka gelaya waa iyaga bu rabbi subxana wa tacala. haddana maca dalika maxay leeyihin annagaa wax hagaajinayna leeyihin, annagaa wax wadnaa, danahaan u taagannahay. warkaasay daldalayaan macnaha saas weeyaan.